wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iiraan Jaale Cabbaas Caraaji oo waraysi kulul lala yeeshay ayaa la weydiiyey su'aalba su'aasha ay ka adag tahay jawaabaha uu bixiyey ayaa indhaha caalamka soo jiitay waxaynu eegi doonaa waraysigaas nuxurkiisu waxa uu daaran yahay anagoo idiin soo koobi doona su'aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ah jasiiraddii qaranka ee xalayta la weeraray iyo xaaladeeda iyo weliba mujtamac oo ah hogaamiyaha cusub ee dowladda dalka Iiraan sababta loogu arki waayay goobaha fagaaraha loogu arki waayay khudbadiisiina markaas cod loo saaray oo asagoo hadlaya loo waayay odagu ma dhaawacbaa mise dhinaciisa ama dhulka yaalla oo xaalado adag ayuu ku jiraa ruushka iyo shiinaha miyaa idin caawiya iyo Cabbaas Caraaji oo sheegay inay afuufi doonaan dowladda dalka Imaaraadka qodobadaas iyo waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey qaybta ugu dambaysa waraysigana nin dadkii ugu dhowaa Donald Trump ee ahaa markaas shakhsiyaadka farakutiriska ee talada Donald Trump markaas uu aad iyo aad ugaga dhagaysto ayaa laftigiisii waxa uu sheegay Israa'iil in la burburinayo oo duqeymo lixaad ay ku socdaan waa soo hadalka u dhigaya taariikhda Israa'iilna waxa ku dhacay haatan oo kale inaan la arkinin dagaalka ha la joojiyo guulna ha lagu dhawaaqo ayuu leeyahay xaaladdu waxay maraysaa xaqiiqatan bariga dhexe meel kastoo aad dunida ka joogtaan aynu ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda dowladda Iiraan Cabbaas Caraaji ayaa waxaa la weydiiyey su'aasha koowaad oo ahayd markaas jasiiraddii xalayta la weeraray ee qarag ee markaas muhiimadda gaarka idin lahaa weerarkeedii sidee ayuu u dhacay maxaad ugaga jawaabaysaan xaggeesa laydinka soo weeraray il gaar ah ayuu ku hayaa dowladda dalka Imaaraadka Cabbaas Caraaji ayaa sheegay in dowladda dalka Imaaraadka laga soo weeraray gantaalada markaas ridada dhexena lagu weeraray isla mar ahaantaasna ay ka jawaabi doonaan ficilna ugaga jawaabi doonaan dowladda dalka Imaaraadka weerarka dhulkooda looga soo qaaday waa kan Cabbaas Caraaji oo ka jawaabay about what has happened on Guul Island and what is Iran's response to these strikes. Well, thank you so much for having me. I think our armed forces have already answered that they would retaliate if our oil and energy infrastructure are attacked, and they will attack. waa meesha ay u dhibato weeye fariintan toos wuxuu ugu dirayaa Donald Trump haddii ceelasheena shidaalka iyo meelaha hamaha lagu kaydiyo shidaalka iyo wax kasta oo ku saabsan enerjigeena weerar lagu qaado dowladda dalka Iiraan waxba la harimayso ujeedadeedu waa maxay hormuus oo xiran oo noo soo socota iyo ayaga oo markaas ceelasha shidaalka ee wadamada jaarka ay yihiin carabeed ay weeraraan waxay ka dhigan tahay cayshada caalamka oo cirka isku shareedha iyo Trump oo xaaladdu ay ku adkaato Cabbaas Caraaji meesha hadalkiisa u dhacayo waa cadi hawaakan any energy infrastructure in the region which belongs to an American company or an American company is a shareholder. So the reaction would be clear. Last night, they have attacked Guul Island and Abu Musa Island with, the artillery rocket system, HIMARS as they call it, which is a low-range rockets, and they have done it from the soil of our neighbors. And this is crystal clear that now they are using the territory of our neighbors to attack us by these kind of, rockets. And this is absolutely Which unacceptable. neighbors, sir? Well, the last night attacks were tracked by our forces, and now it is clear that they are fired from UAE, from two locations in the UAE, from in Ras Al Khaimah, and from a location very close to the city of Dubai. And it is very, dangerous that they use highly populated areas to launch, rockets against us. We would certainly retaliate, but we try to be careful not to attack any populated. وهاجا gantaalada ridada xamaha kuwa ridadooda hooseysa way kuwa kasii hooseeya
waxa uu sheegay shirkadaha shidaalka Maraykan kambaniyada Maraykanka ah ee shirkada ku ah ceelasha shidaalka iyo warshadaha lagu sifeeyo shidaalka inay bartilmaameedsanayaan waxaana muuqata halkan Iran inay ballaarinayso haatan dagaalka horena waxay u sheegeen shirkadaha tech companieska bariga dhexe ku yaala Maraykanku leeyahay waase hadalka u dhigtay Iran inay bartilmaameedsan doonaan gantaaladan labadaana xalayta lagu soo ridayna oo sidoo Donald Trump wax u sheegayay iyo sida Abbas Araaji u sheegayay kaafiya kala leeyihiin waxa uu yiri Maraykanku xalayto xilli Trump oo qoraal soo dhigay daakun ayaanu ka dhignay waa qabsanay meeshii anaga ayaa ka talina war noocaas ayuu ku hadlayay ninkan waxa uu sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iran laba gantaal oo waliba laga soo riday meel dad weynaha shacabka ah oo ay aad u degan yihiin dalka Imaaraadkana laga soo riday in ay markaa gantaaladaas meeshaas ay ku dhaceen ma uusan sheegin in jasiiradahan labada cidda haysata iyo in laga qabsaday iyo in lagala wareegay waxaasoo dhan halkan kuma cadda sida warka Abbas Araaji laga hadlay laakiin waxaa cad inay dowladda dalka Imaaraadka ay doonayaan inay ka cadgoostaan oo ay ka cabaadsiiyaan laakiin anagu bartilmaameedsan mayna ayuu yiri shacabka iyo maatada meelaha ay degan yihiin waa kan mar kale asagoo wax laga weydiiyey markaan xiritaanka Hormuz waxaana la weydiiyey Hormuz maxaad u xirteen wuxuu yiri Hormuz waa furan tahay waxay ka xiran tahay oo kaliya Israa'iil iyo Maraykanka ayay ka xiran tahay caalamka intiisa kalena waa u furan tahay haatan Jarmalka Faransiiska Talyaaniga India Japan wadamadaasoo dhan kiyu waxay u soo galeen dowladda dalka Iran inay la hadlaan oo ay yiraahdaan toos baan idinla xiriirinaa ee shidaalkeenu meesha hanoo sii maro oo Donald Trump ay xareer marayaan aysan ka haybaysanaynin cidda midida daabkeeda haysa oo meeshaan isbaaradu ay u taalaana dowladda dalka Iran inay tahay inkastoo aysan jurisdictionkeeda iyadoo aysan lahayn 100% haddana waxaa ku taxan gantaalada Iran ayaa ku taxan markaas oo kulaalaya xeebta oo dhan markabkii soo marana gowda ayay ka saaraysaa wayna ogeyn 3 markab maalintii Arbacada ahayd in la gubay shidaalkii caalamkana oo cirka isku shareeray marka cidda meeshaan ay ka xiran tahay waa Israa'iil iyo Maraykanka ayuu yiri Hormuz dadka kale waxay ku mari karaan si markaas nidaamsan waxa halkan ka muuqata dowladda dalka Iran inaysan doonaynin caalamka oo dhan ay isku dirto oo ka soo horjeesato dagaal lagulama jirto Soomaaliya maraakiibtaadu ha maraan wax dhibaato ma lahan dagaal baan ugula jirtaa ama dhulkaagana laga soo weeraraa anagoo dagaal baan kugula jirnaa waa kan mar kale Adrian. Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Of course, many of them prefer not because of their security concerns. This has nothing to do with us. And at the same time, there are many tankers and ships who are passing through the Strait of Hormuz, and I can say that the strait is not closed, but it is only closed to American, Israeli, ships and tankers, and not to others. وحاجات إن عكر هذه الدعوة يعني لو كان رأيي إنه هوس نقول وذاك وزير كهذا الله وكجوابيه هرموس والله حري الباب ده يسوون فتيه لما مركروا وحاصل وحليه وحلا وجود حليا إن إيران عالم كلات صو إن أيضا تهيتن إسمارة اللي إسلام راحان تاسنا ضد كأمريكا كأو دجالك كسوه جيستي عن شرعية دلحين مركز نقول لا بالحوصله وجدنا اللي هو تاس أو ترامب مركز دجالك سلاس وكوجده لكن عباس عراجي وحو يري هل كانوا فرنتهاي لبداس قolo kaliya ubaanu bartilmaameedsanayna dhinaca kale miilooyin baa la dhigay oo lama mari karo lagama tilaabi karo hadalkiisa kama muuqato oo meel miina ay taalo maraakiib ay dalaleen dagaal ka dhaxayn mara ma aysan oran lahayn laakiin shakiyuusan kaa gelin shiishka Iiraan ayaa saaran Hormuud waxa maraya cidaysan iyadu u ogolaanina halkaa kama tilaabayso waa kan mar kale asagoo wax laga weydiiyey hogaamiyahooda cusub oo maalmihii saacadii la soo dhaafay khudbeeyay oo aan wali meel babliga iyo lagu arkinin tan iyo intii aabihiis la dilay 28 bishii la soo dhaafay sanadkan 2026 dagaalku markuu bilowday 3 toddobaad haatan madaxa la galay oo 16 maalmood haatan dagaalku inuu jiro ay muuqato
waayahay cabaas caraaji waxa uu sheegay been in laga sheegayo shalayta ayay ahayd ayuu leeyahay markii madaxweynaheena iyo asaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dowladda dalka iiraan ay shaariciyada waaweyn ee markaas magaala madaxda dalka iiraan ee tahraan ay mushaaxayeen ayagoo bulshada isla sawiraya la sheekaysanaya isla mar ahaantaasna dariiqyada maraya marka propagandada iyo beenta waa lagu yaqaanaa ayuu leeyahay hogaamiyaheenu shaqadii qaran ayuu haystaa maalin dhowna waxaad arki doontaan asaga oo markaas dadkiisa dhinac ka raacaya oo nolol maalmeedkiisa iyo shaqadiisii ku guda jira waxa uuna hoosta ka xariiqay inaysan jirin markaas wax khasaare ah wax dhaawac ah oo soo gaaray arrintan ayaa imaanaysa xilli dowladda dalka maraykanka madaxweynaheeda wasiirka gaashaandhigga iyo kuwo kale ay ku hadaaqayeen ku celcelinayeen in markaas mujtaba cali khameyni uu dhaawac soo gaaray arrin la qariibsan kara maahan maxaa yeelay aabihii hooyadii xaaskiisii iyo caruurtiisii mid ka mid ah ayaa qaraxaas lagu dilay isaguna goobta inuu joogay ayaa la sheegay marka arrinaan la qariibsan karin weeye laakiin cabaas caraaji goor dhow ayaad arki doontaan ayuu yiri marka warkii maraykanka ka imaanayay oo lahaa his disfigured waxa weeye wejigoo qaarku go oo kale iyo waxyaalaha la midka ama dhaawac weyn oo kaa soo gaaro oo aan lagu garanayno qofkaad shalayta ahayd iyo maanta marka isku barbar dhigo marka suun baad arkaysaan goor dhow inkastoo hadal siyaasadeed uu yahay oo suun ay noqon karto dhowr bilood oo soo socda iyo sanad soo socda iyo maalmo intaba ay noqon karto haddana hoosta wuxuu ka xariiqay xaaladdiisa sidaas tahay waa kan mar kale soo dhawaada daawadayaal. We know that Iran has elected a new supreme leader, Mujtaba Khamenei. He has not been seen yet in public, though he did issue a statement yesterday. I'm sure you have heard the comments from the U.S. Secretary of Defense, Pete Hegseth, who has said that he claimed the supreme leader is wounded and likely disfigured. What is the status of the supreme leader, Mujtaba Khamenei? Well, they have made so many claims like this. Yesterday, they said that all Iranian authorities are in the bunkers, but at the same time, the whole world saw our president, the Speaker of Parliament, everybody, the Secretary of our National Security Council, everybody was in the street among the people who